kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada toddobaadka iyo barnaamijkeennii milicsiga siyaasiga toddobaadkan barnaamijkeenna waxaa noogu martay xogayihii hore ee xisbiga mucaaradka Cabdilaahi Warcade ee xilka laga qaaday ee xisbiga wadani wahagaag gudoomiye waxa la leeyahay bal waxa nooga warantaa arintii horta halka ay marayso horta wariye ku ceeli hadalka aniga xogayaha iyaa iga qaaday xilka maadaaya qaaday ma sidii guddi ku ceeli sidii guddi sax u dhay waxba yiraahdeen waxba leeyahay sida hayd u dhay sida iyo ku yiraahdeen aduguna sideed u oranaysaa anigu sida u oranayo warbaahinta tooda ka dhageystay tayda maxaad u maqlay waayahay sideed adigu tani marka xogay waa tooda tooda waxay yiraahdeen iyo waxay yiraahdeen xilka laga qaaday adeerka laga qaaday xilkii ay ka qaadeen laakiin adigu maxaad leedahay anigu waxa leeyahay waxa aad sheegaysaa ma aha wax warbaahinta iyo ummadda midna tan oo adigana dan ku ah waxa dan ku ah waxa jiray inaad sheegto anagana dan oo waxa weeye niman buu u yeeray oo yiri fulin baan loo waan fariisanay meeshuna waa xisbi maqaaxi isagu leeyahay ma waxa weeyaan sharcigu wuxuu sheegayaa halkii lagu doortay baa lagu doortay halkii lagu doortay baa laga qaaday shirweyna lagu doortay shirweyna laga qaaday waxa xaq u leedahay inaad tira sidoo yiri ciro وحلكي كقاضي سيدو يروح عدنا وديدي وياهي سيدو hadalka dambe raacno sida xogayuhu eraygiisa dambe u yiri iyo kula sida hore u yiraahdeen marka ilaa inta arintu ay kala cadaanayso wahagaag xogaya waxaan ku kala ku weydiin lahaa bal waxa ka warantaa arintu halka ay marayso arintii arintu waxay maraysaa wixii uu yeelayay ciro uu yaalay isagu dantiisa uu arkay ana waxa yeelayo hadaa sharciga raacayoon maxkamadda tagayeen way banaanta haddaan anigu leeyahay nabadgelyo way banaanta laakiin arinta wadiga warsugaysa wahagaag xogaya waxyaabihii matala lagu soo eedeeyo waxa kamid ahaa xisbigu siday sheegayeen inaad noqotay afhayeenkii dawladda isla markaana mabda ahaan waxyaabo badan oo xisbiga aad ka soo horjeestay sidii dekada marka arintaasi bal ka waran maxaana fayeenkii dawladda ku noqday way sheegeen ummadda u sheeg waxay yiraahdeen wuxuu difaacay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya isagoo noqday sida u dhaday sayidii adiga af joogo looma adeegay adiga oranaya marka ii sheeg okay ku sheegay wagaas waxa ninkaas wuxuu weeday horta uu xisbiga cid ka cabanaya ma jiro cid la cid dambiga gashay ma jiro wadad walaaladaya wadada soo shaqeynay wadada abaalo hayo wadad aan aad iyo aad ugu mahadinay shaqada fiican wada wado waxay weedeeyeen oo ku saxaya waxay yiraahdeen ra'iisul wasaaraha Soomaaliya wakiil soo waray khayr wakiil Soomaaliland ma hadal jira wadal ka tirsan Soomaaliya dekada berberina anaga bixin karna maalgashigooga anaga bixin kara ma tashan karaan waxba ma qabsan karaan wakiistayda أنا كجواب واحد خيره وطريون السعيد الكروات الجرا سومال لامبا الله يلا وحنا جعلين ضدك الصوماليات ولا الله إنه سوى ولا الماء ووضع ولا عنه شرف عن قلنا سدا أن جبوتي توبيان هاي عن قلنا أيام نقول عليه ما أنت نقول عليه هداد دين كويري كوي نسكر رأستين إن نوح باهين haddaan naga xishoon weydeen waa naga baqi doonta horta intan intaas ahayd BB World iyo dekada berberana anaga gudbi anaga leh anaga xaq u leh madaxdayada iyo golayaasheeda ka taliyay waanu siin doonaa kuwa kalena waanu siinayna adiga waxba ka weydiinayno waana sharci wara la baaskiray haddana waa leeyahay ummadii wada maqlaysa Soomaaliya Soomaaliland haddana waa leeyahay la gabanayay horta taasa la igu eeday نمبر 1 قدوميه لقى كلمة صاحب انت بني ادم صاحبي هيبان صاحبه وحنا في وحكوها الله ويكو ادكاتay inuu aniga igu cambaarey hadana uu tusay inuu diiday wuxuu xogayo afka xisbiga uu ku hadli karaa laakiin wixii ka dhiman waa ku dari karaa wuxuu ku daray anagu hadaan lahay xisbiga wadani oo tayd wax ka soo jeedo galaysa ma naabas kareynin BB World iyo dekedeeda berbera midna ma naabas
golayaashuna may baabskareen mana aanan saxin shacbiguna muu baaskareen arrintaa ma ogolin ma ogolaanin aniga arrintaas dhaawac bay runtii igu keentay shakhsiyan qalbigayga ah waayo bini aadmigu wuxuu shalay isagu saxeexay faysalow inuu diidaa waa nin horta ilmihiisa dafiray wuu ku sheegay ilmo uu dhalay nin yidhi maan dhalin wey dadnimana maaha anigu waxaan ahaa somalilan iyo cid waliba markhaati ka tahay ninkii habeen walba bbwda ka hadli jiray halaga daayo halaga daayo halaga daayo halaga daayo gurigiisa golaha wakiilada way wada dhegaysanayeen waa ii marag waxaanu gebigayay intayda hogaanka iyo maxay tahay iyo golaha inta taageersan wadani aanu isku raacnay in arrintaa laga hortago habeenkii baa la bedelay waxaan aroortii ku war helay too gacanta la wada taagay 8 cod buu ku baaskareeyay gudoomiyuhu arrintaa sidaa leeyahay waxaan hayaa anigu oo ka doonay maxaan ku idhahay arkiifyada wakiilada waraaqdii uu qoray ee uu ku cadaynayo in la ansixiyey ka oon ummadda kala xishoonaya ina soo hordhigo warbaahintana waa laga sheegay meel walbana waa laga sheegay b b c-dan waa ka hadlay waa la hayaa maxay tatiyo aan ka hadlayo ka doodayno wasiirka duulista oo ku sheegay oo markaa wasiirka duulista xilligaa joogay oo dood laga qabtay waa la hayaa meel walba waa lagu hayaa mid muuqaala ciroo baaskareynaya nasiib darrada intaa leeg haajidayso ayaa dhacday markaa waxa leeyahay afhayeen baata xogeeye guud waxaan u ahay dalkayga iyo dadkayga inaan ku difaaco xogeeye guud inaan cirro ku difaaco uma yihi badhagaysaanu kuu dhammaynaya afhayeenna waxaan u ahay oon xogeeye guud u ahay qarankayga xisbigayga naftayda oo kuu sheegaya dhagayso anigu isaga uguma yihi xogeeye guud inaan ku difaaco anigu waxaan xogeeye guud ku ahay inaan qarankayga dalkayga dadkayga wixii ku xun aan ka hadlo ninka taa diidaa meel ma wada joogayno xisbigana midka ayuunbaa ku haraye ku wada hari mayno ninka waxaa leh waayahay xogay waxaan kuu sheegayaa muddadii aad joogtay waxaa laleeyahay xogayuhu muddadii uu joogay ee uu kula jiray xisbiga eedamahan muu soo dhigaynin arrintaa maxaad kaga jawaabaysaa waxaan kaga jawaabayaa ninka sidaa ku yidhi waa runtii cirro waa nin gob ah oo wanaagsan qof ahaan marka laga hadlayo arrintan rag baa wada anuu aan ogahay waxaana isbeddelkani dhacay intii doorashada ka dambeysay waan kuu sheegayaa dhegeyso farbadho aan run ku wada hadalno waxa weeyaan maan qabin mana sidaa aad leedahay maalintii laygu yidhi sideed u difaacdaa ra-iisul wasaaraha gudeeye dibadba somalilan ka weeraray baan anigu ciro meel madow dhigay oon idhi waa kala leexateen dadkuna mar unbuu kala leexdaa ciro halkan ku kala leexanay waa ra-iisul wasaaraha haddaad difaacday afhayeen baad u tahay xukuumadda soomaaliyaha lagu soo duulo somalilanna maxaa kaa galay markay marayso laba wadaan kala isla naqaano laba wadaan kala taagan halkaasaan ku kala weecanay kumaanaan kala weecan wax kale ilaa weligeena saaxiib baanu hayn runtiina aanu ninka somalilan ka hor yimaada qofka ka hor yimaada ee weliba ummaddu hogaaminayaana somalilan tahay dhiiggeedii u hurtay nafteedii u hurtay wax walba ay samaysay malaayiin qof wariya lixda waa adeerkii isaga cidi kala xigto inuu maanta yidhaha somaliya maxaad u difaacday intaasaa kaaga filan oo ceeb bay ku tahay ilaa afhayeen baa tahay baa xukuumadda u tahay haddaad somaliya difacday war naftayda difaacay oo xisbigayga difaacay oo qarankayga difaacay oo dadkayga difaacay cirana maa difaacayo qaladku leeyahay oo anagaa kaga wacday wana halkaa waa bartaa madow halka ku kala leexan weligeena iskugu iman mayno xisbigana ama isagaa yeelan amaanaa yeelan waayahay dadka qaar waxay leeyihin guuldaradan xisbiga ku dhacday waxa weeye waxaa keenay warcaddi waxbaa ka wareegi dadka qaar waxay leeyihin ha dadka qaar waxay leeyihin inuu warcaddaa keenay sooma inuu warcadday waayo dad badan muu keenin baa laleeyahay dadka badan waxaa ka baxo inuu warcaddaa keenay sooma aniga haddaad reer ahaan ila hadlaysaan madaxdayadii ugu waaweyneyd muuse hal nin kuma hadhin hal godobtaanu ka gallayna aadami ka gelin ma jiroon aniga ahayn oo kuu sheegaya waxaa yimid ana soo wada dhaweeyey anigaa u wada furay anigaa qaarkood ku idhi ciro hortiisa lagu soo biro kursiga ay qaado kolka ha idhahdo waa beenaale inta dooraysa ku tagta caawo yeedho
ilaa kursigaygaa gaadhay ilmaadeeradiina siisay igu yimaadaan horta ninka godobta ugu badan muuse ka gala waa aniga ilaa weligeyna maan raacin kolla adeerkaabaan la socday kolla awowgaabaan la socdaa waryaa anuu qoran leeyihiin hadhayso waryaa anuu weli aan ka baxo dhegeyso kolla way maxaad ku keentay way raggaas maxay keeneen waxay keeneen 40% ragii gaarsiiyey wey oo kuu sheegay laakiin ninka rogay ee riday waa darawalkii gaarigooday dadkuna inuu racdo muu dooranay ciduu dooranay hebel baa la dooranayay hebel muuse cabdi iyo waxaa la dooranayay cabdiraxmaan maxamed iyo faysal cali aqaldin ummadda codka dadka maalguryahaanu ka soo guraayo oo nilaaciga oo ugu gurasan adeeqda ma oranayna kaad wadataa waa kaa dalka ba ku aaminayna mise ku aamini mayno ummadda 55% waxay dhahay ku aamini mayno mayno racdaa codaan keenin baad markaa leedahay ma waxaad doonaysaa codaan jirin oo dunida jooginoo dad aan caqli lahayn baan hayaanu dad caqli laan hayo dadka caqli lahayn way u codeeyeen 40% way keeneen intii kale isaga daaday wahagaag waxaad ka warantaa waxaa la leeyahay guddidii markii imika lagu saarayey guddidii fulinta sideed u arkaysay wayga su-aale wixii ay soo saareen horta adeer guddiga fulintu dawaa niman maadarnaa soo wada shaqaynay anuu nimankaa aflagaadayguma leh laakiin waxaa ka booday horta eeg labada nin bal waan soo wada heshiinay u tageen waa runtood waxa weeye labada nin marka la wada hadashiinayay guddigii markii ay wixii ay nooranayeen ay meel dhigi kari waayeen ay muddo u baahdeen inay anigana ii yeedhaan sidaan u arkaayo isagana u yeedhaan ayna idhahaan war nimada arrintii maanaan dhamaysana dib noogu dhigaba ahayd waxaan ku war helay message uu ii soo diray oon hayo guddoomiyuhu oo uu leeyahay shirkii dib baan u dhigay ilaa sabtida wala ninkii noo garnaqayay adu maxaad yeelahay dadka waxbaad weydiisaa adaan ku weydiinay adu maxaad yeelahay ka soco anigoo ku dhegeysanaya ila su-aal baan ku weydiin jawaab baan kaa rabaa adu laakiin ma jawaabaysa waay ka socda anu markaa waxaan u arkay ninkii wuxuu doonayaana waa nimadan hadda waa niman aanu ku wada jirno xisbiga muddo dheer oo waan iskaranayna si kasta aan warka u helo warkii baan helay oo waxaan ay soo saareen inuu cidda doonayoona iyagu doonayn isla markaa uu rabo inuu wakti u helo ragguna isku mid maaha imikada ma qaar baa diidanaa kuwaad sheegayso aadna ugu mahadinayaa garanayaana runtiina kula qadarinayaa waxay yidhaahdeen oo ereyo saxa ah haddii cid la imbiij karaynayo oo xilka laga qaadayo farfarlow ninka xisbiga baabiiyey ee sharci wuxuu dumiyey go-aankii shirweynaha oo ahaa kii lanagu wada doortay labadayada wuxuu soo kaxaystay inaan u adeeriyu yidhi ninkaa shirweynaha lagu doortay u bannay kursiga inan kalan adeer u ahay waa dhab dhegeyso andhameeyo wuxuu jabiyey xeerkii xisbiga oo oranayay xogayaha guud iyo guddoomiyuhuba markay meel u baxayaan ku-xigoonkooga ayaa say qabanay okay wuxuu dumiyey oo u baalmaray shuruucdii xisbigu lahaa geligeed nimaan xisbi ku jirin nimaan meel loo soo marin ayuu dadkii hogaanka ku jiray fulinta kuraasidoodii siinaya oo uu leeyahay ku-xigeen iga dhig xogayaha kuwii shirweynaha lagu soo doortayna uu siinaya xisbiga meenaha dibinaya mise isaga dibinaya wahagaag waxaan ku weydiin lahaa warcadda xogaya waxaa kaloo aan ku weydiin lahaa matalan waxaad ka mid ahayd guddidii commissionka ee xisbiga mucaaradka ugu jiray guddoomiyihii nin uu ka soo horjeestay arrintan baarlamaanka sideed u arkaysay markaa aragtay horta anuu mas-uuliyiinta xisbiga ka mid aha weliba kuwii hawlmaalmeedka lahaa oo xogayaha fulinta hawshoo dhan isagaa leh waxaan ilaahay la hortegaya waanan cidda ku saacidayn cidna aanan uga gabanayn si walba inaanu u tirin waktigii lagu dhawaaqi lahaa inaanu dhaafinay muddo inaanu gabilay 3 jeer tirinay in guddoomiyaha komishanku gabilay tegay uu kusoo tiriyey in hargeysa lagu tiriyey in sidii inaadeer ilaahay nagu ogyahay aanu kuii tirinay maan ahayn laakiin sidaan warka ku hayo sugan waxa weeye si loo tiriyaba waa loo tiriyey anuu tacabkayga nin kale maan siiyan ma eegayo qof kale ma eegayo anaaba eegaya tayday tacabkayga jira ilaahay baa ogo halka sheegi maayo ma siiyeen aadami kale
laakiin xaqdarro ma qaadanayo oo kursi xaqdarra inaanu fuulno ma doonayo cid xaqla inaanu ka qaadana ma doonayo kursigaa waa lanaga hel somaliland oo dhammina way ogtahay ku yari ku weyn afka wax kastaa laga idhaahday in dalkeenna lagu carqaladeeyo oo nin muraad lehi uu dalka ku baabiiyo waxaan jirina anuna aqbalayma وهاج حبي وحلا لي ورعدة وحلا لي إمك دتك قاروح قبان وحلا لي حسبك قندراس بكو سوق عطوا حسبك سوبر بريبا اللي يقولي فكرة ده ما حد كقبتها هرت هذا رين أسهل فعن كعين خير دواء عقلي إنك قندراس قاطع وإنك وحى أنخوش هي شروعه أنتوا براري دورشدي كذب واحد دوني الفري ninka qandaraas qaatay waa ninkana qaanay ee Soomaaliland ku tasbiixsan jiray oo ilaa maxaad ugu jawaabtay weerarka Soomaaliya inagu soo qaaday Soomaaliland horta ninka qandaraas qaatay waa ka una yeero weydii haddana way maqlayaa ka jawaabo labadaba suugeynay waliba anagu muddo 7 cishaa buu gurigeena fadhiyay labadaba kaliya nin baa maalmihii dambe anigu aan dalbaday inuu noo yimaado waxaan ku yiri wax badan baan xuquuqaan والله لا إله إلا الله صاحب بانوين إلهي واحد وجوه تجي دورشري كور لكسر سومالنا نك الله هلا ويسجى أنا جماعة وربوح الله يجوه هلا إن الصومالي وشوابه هذا كويدين يعني والرئيس الوزراء الصومالي يجي متشرتان إن الأول شرنا نيا الله هلا والسؤال هذا كويدين وربوح الله يجوه هلا وأنا جاي من إن كانت شيبة كوسيتا أغلى كاجي إسكاجي الشرع ما هيرو ماشي يمادي لأنه إن كمان ديدنية الشرع الدراسة الصعوتات ديدنا نكوحة هو ذا بريري على هلا نيجي اللي يمه الأرض هدي الله يقول هلا الصومالي الدفاع والله هلا هدي الله يقول هلا الشرع قرب مرة إن الكل بني شيبة كوقاطع وحول بوسيتا يحوي جدبان هنا والله هلا لكن هدي تاسع الساعة هين نكين تالي جدبان هلا نيجي اللي يمه إن وهاج waxaad iiga warantaa waxa la leeyahay had iyo jeer wadadkaaga wad marka wada ka bar waxa weeyaan de waa su'aal iyo jawaab weeyaan waxa ka warantaa waxa la leeyahay مثلا eedeymo badan oo dawladda muddadan u dambaysa warcad intii hore uu ku adkaa laakiin maanta waxba kama sheego wasiiro badan oo reerkooda ka waran waxda markaa wasiiro reerkooda waxba kama sheego soo xaday qaldacada halka waxa weeyaan inta diyaar baan waa dawladda waxa weeyaan reerkooda sama ma reerkooda dawladda had iyo jeer waxba kama sheegaan isagoo hadda mucaarada ka waran horta waa ku sheegay xisbiga waxa wax ka sheegay dawladda xukuumadda aniga jira cid waxba wari ka wishii inama yaro gidaar ka hadlay waxa kama tahay niiri saacad fartiisa lagu dhuuqay subag aniga jira نيري مدحوينه سلدقه aad bixinaysa ka fiirsanaaniga jiray ragii hore bixiyay isagu ma bixin taariikh kamida kulayaashu ay bixiyeen ka fiirso naanigu haye ramohay ina koore ninkayri war cadee biyahayaga halkay mareen hargeysaan u nahay oo maxkamad keen cidii cuntayna anigu haye bal waxa wadaniga kale yiri oo xukuumadda ku yiri sheeg adigu amoor bal waxaad cadaysaa matalan eedeymo badan oo muddadii aad joogtay la leeyahay isagoo had iyo jeer kursigu la saaxiib yahay oo markii horena odayga aad baa u saaxiib ahaydeen maanta markuu odaygu dhacayna waad ka dhacday bal maxaad ku leedahay aragtidaad ka adeerba kursigu fadhiyay aniga lahaa harka uga wareegay waa ciidda fadhiyay cidba kursigu fadhiyay buu haysta hadduu kursi fadhiyo waxa weeyaan kursi la saaxiib baarayne ninka gidaarka fadhiya ragga عاد جوجا هرك قلنا أنا حسب قاعد أنا جوجا بير تقوي نوالها أنت قفلوا بار العشر بدحونا كنا جاي بيت سوا قولوا ريه مر أمو مكون مصروفات موزة السجوي دي ها واحد ترى مهر كيمو كاس على مسار بقوليني أنت السجوي يعني يودي ويا حاجة أيامها القدام بيسي إن وحيابا بدن باكرين حولا بدن أو مثلا إن مركا وقدام بين إمكا محاض إن waa markii ugu horeysay taariikhda warbaahinta aad uga hadasho toddobaadadii ugu dambeeyay
marka bal sidee baad u arkaysaa maanta dareenkaaga ama feedbackaaga kaaga soo noqonayay adigu sideed u arkaysaa iyo adigu shaqo ahaanba maxaa qorshaha kugu jira mustaqbalka horta qorshaha mustaqbalka hadda waxaan wadaa la tashi badan xisbigana dad baa leh ummad baa leh tacab badan ka galay inaan si dheeldheela ugu ciyaaro cira wuu ku ciyaarayaa ma doonayo xisbigaasi waa xisbi fiican dadka ku jira waa dad fiican waa dad goba runtii abaal badan aan u hayo aadna ugu mahadnaqayo dadaal nafbaxana sameeyey 5 sano oon dhammaan ayay ku gaarsiiyeen 40% inay Somaliland keenaan anu waxaan u arkaa runtii inaan wax taro mooyaane horta haddii aan ama anigu aan iska daayo oon xukun iyo waxaa iskaga hadho ama xataa layga xukumaan wadani baan ahaanay oo ku sheegay tacabkayga jira meel iga jira ma jiro dadkaanu isku barannayna Somalilandka kale oo dhan ayagaa ka badan ودانو انت كاقان ايغا سومالان كلا كما قان marka nin umada tacabkeedii xumaynaya ilaahay baa koos kalumay wali baa ku jira dadkana adigaaga nimkan ku jikaareen inad weli taageeran maayo laakiin daan waa in isdhowraa taas waa mid haddii aan xaqayga doontana way banaanto ninkaan banaan ka dhigo way ninkani guul lama gaarsiin inuu xisbiga sii joogo xisbiga uu guuleystay ciraa la dhacay inuu ciro sii joogo inuu guul ma gaarsiinayo tan ugu haystuu leeyahay wuxuu isku dirayaa beelaha هذا هرت عبد القادر جردي هشيس بنا لا قالي سانا كان أنا ما كيرين أيام كل يوم البديل الحقي حلا أولا عطي أفوك هذا العي إن سيدا دوار كيسا عبد القادر جردي وحلا هذا عبد القادر جردي يقول لي سيدا بدك كسور ريحية هرت هذا عبد القادر جردي حرير شخصي مالي وريني قوين صاحبا دير صاحبي ولا ما يسرقانه لكن ولي بالله طلعت هذا حرير شخصي ولا لا مجرو لكن حرير وناسين وين هذا ولا وحول بضلنا سولار كيسروان وحي هاي باش شيغاي هورتا دبدا كبر ريحيا نيك دالبداي انيغا iga dalbaday in Cabdi Qaadir jirde sanadka ku wareejinay waa ciro u dhageysanay oo noolay anigu nin cid ku diraysan meehi tii uu baa warbaahinta galiyay haday dambi tahay waana kaasoo afkiisa ku weydiiyay ciro iga dalbaday marxaatiyaalo walaa haya waana dhab isaga aan oo ogolahan aynu u dhiibno waana u qalmaa wasa كبوس وحرك كليا وأركها يحسب إنه بدبادي كرو حسب إنه تعب كي يجترا إلهي باوك يا أيوة مساعدة يجتوا حي يجتوا إلهي بن لور تجتا إلهي بن قارئ حق بان ولا إيه كلس وجهي حتى نعبتها فيصلوا حتى لو نعبها هديني كلا العلي سيشرت وانا لو كلا شيء المركا مو صبر إنه سيدا دبيش دبك وجوج بتكبوسه ودبي كذا جايين السوق هذا هذا روح حريته يدو مركز كذا حرية القول كي رايق حسب واحد يقول جرا الخير يقول قيمة وحرية الخير يدي إنه نحن هذا ومانا إنه مثال الجري ومانا هل كان مستقبل يجاري يا بارد هل كان حق لا بارد سبب لا بارود يقولون قوي من ماشى روح عبورون كانوا وياه واللي كان أنا وياه ليس قوي وياه وكل شيء كو وياه حسب قوي بدو هبرنا يا روح هبرنا ما تفهم حسب أنا ما أنا قارئ مثلا أنا waxaan ku weydiin lahaa guud ahaan bal waxaad ka warantaa in wadankaanu soo noqon xaaladda dalka sidee u arkaysaa nin siyaasi ah oo xisbi mucaarada waliba sidee u arkaysaa wallahi xaaladda dalka alxamdulillah roobkii baa daay dalku barwaaqaysan yahay balaayo ma jirto insha Allah guuleeyo gaarto maxay kale waa hagaag dhinaca sicir bararka oo kale bal ka waran inaad horta sicir bararka kulmiga baabi halka dalkiisa gaarsi ayaga laga rabaa xal degdeg ah inuu umada u keeno sicir bararku waa halaag dalkani kuma jiri karo umadani ma joogi karto muddo dheerna uu soo jiitamay mar walba uu sii socdaa waxaan xukuumadda ka codsanaynaa inay si xaqiiqa ah u waajahdo sicir bararka umadani awood ay ku qaadi kartaan male waxaanu dalkani gaarayaa burbur haddaynu xeelada qaxootiga wada galaa midkeena noolaan maayo madaxweyne jiri maayo مع وربايتها مع نجا مع مدحتوية مع وزيرها إن هو لقوه هالقلوين مع كراسته وده كله كل عيا رتي بدل جاريسة ومضنا النوران ويصدق كل دولار مو ضقاته حبيتي طبعا هذا هاي سنتي بنسينا كي يسكت كي بنتي يساق وركا تاور أبان رحمة هاي هذا جرس قيا الله هذا سنة تاجرسي وهاك سيدا دوار كيسا مثلا المدحوينه إلا هذا وحقبت كيسي
waxqabadkiisa aad arkaysaa meede waa nin siyaasi ah taho xaq baa lagu leeyahay in lagu weydiiyo su'aalaha marka waa wax adiga xaq ay kugu tahay marka sideed u arkaysaa waxqabadkiisii ilaa hadda horta marka si wadaniyada u eego si wadaniyada marka loo eego waxaan jecelahay inaan taabsiiyo laakiin in badan waan ka hadli doona madaxtooyada wayahay ugu dambeyn maxaa xalahe xisbigan aad maanta ka tirsan tahay xisbi qaran weeyaan maxaa adugu xalahe aad u arkaysaa bal sidii mashaakilkiina loo soo loo dhammayn lahaa horta cid si kaya xigto mashaakilkayga dhammaynaysaa ma jirto reer ku lug lahinin ma jiro reerkaa uu ka soo jeeday garxajisna banaanku ka jooga si gubannimoa oon dhib lahayn oon waxba lahayn tale uu la leeyahayna ma jiro intaana waan ogahay ana xoogaal baana kaayaguna banaanku ka joogaayo inuu soo galana waan uga digayaa ma doonayo ayaga waxaan leenahay marwan labalabada ku hadlaysaan ka hadha uma baahna dalkani labalaba iyo tollaayo uma baahna nin baanu ishaynaa ninkaa labada nin ee goor walba tv-ga la soo fadhiisanayo maalinba mid baa la fadhiistee ilma adeerhayaalo meesha waxa ma yaallaan inima saaxiibo iskhilaafay baanu nahay ilma adeerhayaalo dalkan iyo dadkan cilad ha gelinin ka bax wax dhibahoo loo geysanaya anigana ma jirto isagaaba iga sareeya haddii cidla dhibaayo aniguna nin isaga dhib ilaa halkaasa gaadhsiinaya meyhi wax badan buu damiirkaygu iga celinaya waxaad samaysaa kuwaygana waxaan leeyahay war halkaa aad joogtaan baad joogaysaa ninka ii yimaadana waa nin xumaan doonay aniga ninka ii hiiliyana waa nin xumaan doonay oo tolkaya doonay nagu doono kas abaal bay igu leeyihiin wax badan baan dhul badan oy gaar u degan yihiin baan joogay in badan walaaladay in la xumeeyo marna ma yeelayo haddii cid la xumaynayo xaggeega ha la xumeeyo laakiin xaggaa lama xumayn karo xagga aad ka soo jeedta lama xumayn karo faysal ta ka hadlaya waa taa dhegeyso tan maxaa xala waxaa xala in ilaahay u toobad keenu somaliland usoo noqdo difaaceeda ciro kow xisbiga inuu difaaco oo uu caddeeyo inuu somaliland yahay oo ereyada waa soomaali weyn dadkaa shacbigaa lagu leeyahay uu dee difaacay leesaaka guddoomiyaha wuxuu yidhaa ubaa soconaya waxaa xogaya yidhaa waxaana hogaayidhaa waxaa si cidla dhegeysan mayso ninka wax doonaya waa isaga inuu kursiga baneeyo uu la kufayo oo nin alla ninku doono anu melihii gaboosaa loo dhiibo keligii muwaadiniintaan tirinayo baan magacuun baan soo qabsado isagun baa si dhibisha uga gubtay anuu gabooso mar labaad ma soo hadal qaadeen gubashadiisaan kusii gubaya maadi fahamta horta inuu kursiga baneeyo si xisbigan guulu gaadho madaxweynaha maanta joogana cirhow 20 buu wuxuu kaaga helay 40 55 buu keenay haddaa tartan dambe la gasho somaliland waxay ka qortaan 120 telayso maadi fahamta halkaa intaynaan gaadhin naftaada qanci guul fiican baad keentay waan kugu hambalyeynanaa 40 baad keentay walaalow u wareeji xisbiga talada ku celi cidda doonaan ha keena xalkuwa kaa labadeedii xalkooda amaanaa joogaya baysaga joogaya ama waa sabraya waa labada saddexdaa min ama anaa sabraya halkaa ka baxaya oo way bannaanta ama sharcigaanu isla tegaynaayo isagana waan dacweynayaa xilkaygana xilkiisana waan dacweynaya tu shaksina waan ku dacweynaya oo ah in la imbiij kareeyo ilaa qarankiibuu meel kaga dhacay wuxuu shalay baaskareeyey buu diiday markaa qaranka mahadaan buu ka tuuraya ma yeelayno ninku marna ummadda wuxuu keeno idhaa kaale caalamow marna haddana cambaareeyo markuu baashii midna haddana u cambaareeyo adeer ma aqbalayno waana ku imbiij kareynaya wayahay aada iyo aad ayuu mahadsan yahay tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamijkeenii milicsiga siyaasiga intaasaan kusoo gabgaynay aada iyo aad ay mahadsan tahay